waayahay kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan goordhow waxaan idiin soo sheegnay in war degdega oo muhiima aanu idiin soo wadno warkaas waxa uu la xidhiidha waxaa saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada ka soconayay warar been abuura oo ka imaanaya dhinaca Raskamboni kadib markii ciidamo la sheegay in ay ka tirsan yihiin daraawiishta Jubbaland ay isku dhiibeen dhinaca ciidanka xoogga dalka ee ku sugan jasiiradda ama deegaanka la yiraahdo Raskamboni haddaba wararkaasi waxaa markii baaritaan badan aan sameynay inoo soo baxay inay yihiin warar been abuura oo ilaa shalay la qorsheynayay in ciidankii deegaankaas hore usii joogay inta dharka laga bedelo ama laga dhigo doomo inta la saaro kuwii soo dhiibay xogta u dambeysay saaxiibkii Sabriye Soomaali ayaa la socday Sabriye soo dhawow maxaa ka jira wararkaas أنا مقصود هذه صاحبة هل كان نقدر داونا طبعا deegaanka Raskamboni xuduudda Soomaaliya iyo Kenya saan la socno 25 bishan waxa soo gaaray ciidamo ka tirsan Soomaaliya طبعا madaxweyne Xasan Sheekh ka soo diray magaalada Muqdisho diyaarad ku yimid dul badan oo argagixisada ay haystaan soo dulmaray kuwaas oo la sheegay sargaal hogaaminaya uu sheegay in ay doonayaan in la wareegaan goobihii ay ka baxeen ciidamada ATMIS si yeeshee aynu ognahay in siyaasad halkaas loo keeno taas waxaa barbar socotay dowladda Soomaaliya dhaqaalihii u badnaa ay ku bixinaysay warbaahinta gaar ahaan telefishinkii la rabay in ummadda Soomaaliyeed u shaqeeyo uu noqdo telefishin Muqdisho ku ekaada nin siyaasi ah oo dhalinyaro ah oo gudoomiyaha arrimaha siyaasadda iyo amniga gobolka Banaadir ka soo noqday xilligii madaxweyne Farmaajo oo Cali waxaa u dhihi jiray telefishinkii hore ee qaranka marka telefishinka hore qaranka oraahii xariira anoo soo qaadanaya in sumcad dilo ciidamada Jubbaland oo ay ognahay doorkii ku lahayn la dagaalanka argagixisada iyo dagaaladii horumarineed ee arrimaha dowladda doomahan u soo laabo weligeeda dhici jirtay siyaasad maamulka iyo dowladda ay kula argagixisay laakiin amniga waa mid aan gorgortan la gelin ciidanka daraawiishta laga dhiga maleeshiyaad iyo waxyaabo la mid ah waxa dhacday sida inuu la soo cilnay gudoomiye hore ee sarreftay deegaanka Raskamboni shaqada laga ilay farax in ciidan taabacsan deegaanka loogu yimid jiraan kuwaas in Xasan Ciraaqi gorgor gudoomiyaha kuma hadda markaas doomo la saaro oo soo socdo ay soo dhaweynayna waa idin sacbatumeena maartay dhowrkii boqol ee askariye deegaanka joogi jiray diinta mudan waxay tahay dadka ku wareegsan war ciidanka xagee iska dhiibay xagee isku dhiibay haye meeshan argagixisa loogu yimid oomaya ma dad dawladida loogu yimid oomaya meeshan waxaa joogay ciidankii daraawiishta oo dastuurka sharciyan oo 13 sano halkan al-shabaab ay haystaan ka saaray dagaal kula jiray oo waliba furmaha fadhiyay oo waliba guulo waaweyn oo ciidanka xoogga dalka ay gaarin marka in yaani bulshada Soomaaliyeed la maran habaabiyo oo maartay diidda laga jiro oo nidaamka iyo shaati kale oo loo soo xirto oo laga dhigo rag al-shabaab soo dhiibayo oo caadi ahayn dowladda Soomaaliya ku siinayso warbaahinta qaar iyo dad markaasi caado qaatiyaala oo deemayay in sumcad dilan ciidan marka bulshada waxaan rabnaa inaan weydiino ciidan Jubbaland ka tirsan daraawish ka tirsan baxay doomo qaatay oo saakis ma ka baxay oo Raskamboni inaysan jirin anaga horta wariyaal baan nahay dawladna uma hadleeno cid laakiin waxaan rabnaa warka xaqiiqadiisa inaan soo gudbino deegaanka anaga joogno ciidankii saaka xaqiiqada marka laga hadlo ee Sabriyo waa ciidankii Maxamed Farax uu xukumayay ee deegaanka Raskamboni dhowrka boqol ahaa ee joogay oo inta doomo la saaray haddana magaalada la soo geliyay magaalada ka baxeen dhinacna ka soo galeen oo waxa la yiraahdaa marka ciidanka soo dhaweynayna oo u sacbatumeena xabadiya lagu ridin marka bay sumcadilkiisu leeyahay waa xaqiiqada dhabta ah ee taala Raskamboni marka arrimaha siyaasadda weligood dhici jiray oo isku qaban jiray waan laga heshiiyay way dhamaanay Soomaaliyeed ciidamada Soomaaliyeed wiilasha Soomaaliyeed ee habeenay maalin madaxa la soo gelin inay la dagaalamaan argagixisada cadawga Soomaaliyeed ama cadawga ummadda Soomaaliyeed yaan la sumcad dilin anagu raalli ka binin askari qaranka Soomaaliyeed u shaqeeya waa anaga ma shaqeynaa inaan sumcad dilin Sabriyo mana dhibaato 13 sano horta kasbaa ka shaqeynay oo hadda intii dawladdan ay timid ka hor qaxooti baan ahayn waxa ka yimid anigu daragii cararay oo Nairobi ku cararay shabaab ka cararay oo 2008 ka cararay Kismaayo 13 sano Kismaayo kama cararin oo adiguna waad shaqeynaysay oo raggii la shaqeynaya kamid ahayd raggii markii ammaankaas magaalada Kismaayo wararkeedii aan ka tabinayna ka shaqeynayay maanta in la yiraahdo way isdhiibeen ama meel heblaayo ku biireen ama meel heblaayo aadeen kulay ragga qaarna ay ka dhigaan rag si kale oo al-shabaab ka soo goostay oo kale laga dhigo warkooda loo dhigay kulay horta nama damiirkeen nama siinayo inaan warkooda noocaas kale aan tabino waxaan xaqiiqada laga sheego ciidankan hadda dowladda federaalka ee jooga
meesha la yiraahdo Raskamboni jooga dabcan jilib bay soo dulmareen sama jilib yaa jooga marka maanta al-shabaab baa joogta sama ما حكي شيء مقدسو يعني أفكو ما كانت تبح أسوأ جوب يعني بولمرر iyo muqdisho la isku kala mari marka تواني مقدسو in maanta marka beledkii nabadda noo ahaa أنا تذكر beledkii nabadda noo ahaa إن ماركا khalkhal geliyo wariyaashu ma dul qaadanay anagana waxaan u imaanaysaa xaqiiqada dhabta ah anagoo cidna la jirin marka Soomaali xaqada kut ka guur kan joogo guur bacsi guur u tigid marka hawsha ka guur ka socota hawshaas waay walaalada Soomaaliyeed halkaas la keenay waxaan rajeynayaa in Ilaahay wiilkood u soo celiyo dhalinyaro Soomaaliyeed ciidanka federaalka ciidanka Jubbaland waa hal ciidan hal ujeedooyin hal meel u dagaalamayaan dadka Soomaaliyeed ama kuwa markaasi marhabaminta lacag ku qaadanayo waxaad ogaataan dhalinyarada Soomaaliyeed ama Jubbaland haada oo daraawiishada ama xooga dalka haada hal ujeedooyin marka yaan la sumcadin labada dhinac ciidanka yaan la sumcadin ama federal haada ama Jubbaland haada waa hal laga sameeyay amniga iyo la dagaalanka argagixisada gorgorta lagama galayo billahi tawfiq cid kasta intaas sabri uu sheegay hadeeqdo aad baad wanaagsantii warkii degdega idin soo waday intaas oo ahaa xaqiiqada dhabta ah ee maanta ka dhacday Raskamboni waa sabriye iyo aadan oo idin le nabadgeliyo